السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوان وحا إسسو ديبي أو قعنت دولة صوغالي هقاميه كوحدة حزب الإسلام حسن ظاهر أويس هذا وحا سويدين بضان أو هذا الهين بدن أو مالمان سعودي إن حسن ظاهر أويس صابته ويسكسو ديبي محيطة وحا إلا فدي هذا نين دلنيرا أو كمد إن دلنيرا الصومالية دي ودا كان إنجليز كان مد إن هجامية إيطاليا كمد هل كان كردستان وحا أوليه هاي أنجا أيا عسني أنجا أيا أجوبا غني حسن ظاهر أويس إنه يماد دالك الصومالي سيدو كنا وحان عسني ويري إن راد كله كوحها كله ترى كوحدة الشباب كترسن سيدا روبو مصور يو إن رج كله أو مجعابي دون واحد علينا ورئيس جار الله يلنا إن مجلس كسودو مجعقده كبلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مركو جور رئيس هل كان همبليو يبغادين عمرنا يا دمان قيبه بلشة الصوماليات مليا وايجوجانبا. وحن سلام لما أدريا قدوميه هراء حزب الإسلام ناي أهانا حبين كترسن حركة الشباب المجاهدين وعاو كسوغان مقالة مقدشو. waxaan sidoo kale toonbaliyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan qaybaha bulshada doonayna inay ka qayb qaataan hanaanka nabadeed iyo dib u heshiisiineed ee uu Xasan Daahir Aways ka qayb qaadan doono hadii Allah awood leh uu raali ka noqdo waxaan jecelnahay inaan dawladda federaalka meel gaarka ah qaybaha bulshada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ogeysiino Xasan baa la qabtay arinku ma ahayn Xasan wuxuu ku socday wadiiqo nabadeed waxa uu ka qayb gali lahaa shir caalami ah oo dib u heshiisiineed waxaan ognahay ummadda Soomaaliyeed inay u baahan tahay nabad iyo dib u heshiisiin waxaan ognahay in dawladdu ay ku baaqday in la wada heshiiyo in dagaalka dalkeena uu ka socdo uu dhamaado sidaas daraadeed xiriiro fara badan iyo dadaalo la sameeyay waxa suuragal noqotay in Xasan lagu qanciyo inuu ka qayb galo shir ka dhici lahaa dalkaas Gadar magaalada Dooxa waxa sidoo kale shirkaas ka qayb qaadan lahaa qaybo kala duwan oo ururada ka tirsan siyaasadeed iyo ururada bulshada iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed oo daneynayay in dalku iyo dadka Soomaaliyeed ay helaan nabad arrimahaas aan dusha ku soo xusnay ma ahayn arrimo maalin iyo laba iska yimi inkastoo ay daahday in laga hadlo shirar iyo isku dayo iyo dadaalo fara badan dadkooda ay u daahday haddana waxa xoog la saaray lagu dadaalay in arintaas sidii ay u socotay isla markaasna ay dawladaha Gadar iyo dawlado kale oo arimahan involved ku ah ay ka hadlayaan ama ka hadli doonaan aadna waxaan u hambalyeynaa oo soo dhaweynaa odayaashii ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa waxaan murugo iyo xumaan u aragnay runtii in xabsiga la geeyo oo aan ahayn wax ballankii ummaddu ay ku ballantay aan ahayn isla markaasna aanay u adeegaynin in nabadgelyo la helo waxaan jeclahay inaan ku sii weydiiyo waxa tiri Xasan Daahir anaga casunnay idinka oo ayaa cusmay Xasan Daahir xageesa ku cusunteen markii aad cusunteen ma qorshe idinka aad dejiseen buu qorshii ku yimid ilaa cadaado oo hadan ilaa Muqdisho ku yimid mase wuxuu ahaa qorshe nafla caarinimo ah oo ku soo baxsaday oo uu kaga soo baxsaday kooxda Al-Shabaab casumaadda officialka ah ee Xasan uu ku yimid waxa lahaa golaha midnimada Soomaaliyeed oo gudoomiye ku-xigeenkeedu uu isaguna joogo oo wareysiga ka bixin doono waxa lahaa tala soo jeedinteeda dhammaan shakhsiyaad iyo ururo odayaal nabadoono bulshada qaybaheeda kala duwan oo daneynayay inay arintaas ay ka qayb qaataan anigu ugu yaraan 7 goor baan waxaan ka hadlay idaacadda Al-Furqaan ee magaalada Marka ku taala muddo laga joogo 3 toddobaad ayay aad markii ugu dambeysay oo aan hadalla aan toos ahayn oo nabadda iyo dib u heshiisiinta ku saabsan inaan ka bixiyay waan jeclahay idinna siin doono wareysiyadii aan halkaas ku siiyay talooyinkii aan ku siiyay iyadoo waliba idaacadaas doodeedu uu ka qayb qaatay ninka markaas u taliya ama ugu sareeya xarakada shabaab al-mujaahidiin al-shabaab ninka la yiraahdo Abu Zubayr oo dooda ku jiray waxaan qabaa marka qof walba oo Soomaaliyeed hadii uu nabad doonayo ka qayb qaadan karo nabadda waxaan ugu baaqayaa inuu nabadda ka qayto ama Zubayr ha ahaado ama shakhsi kale ha ahaado waxaan ognahay oo na soo maray kooxo sidaas oo kaleeto ka soo horjeeday dawladihii xilliga meesha ka jiray oo uu kamid ahaa Shariif Sheekh Axmed oo kuwa maanta jooga ama warloro maaragtay dalka wixii ka dhacay ka qayb qaatay dalku nabad buu u baahan yahay cid walba oo Soomaaliyeed ka qayb qaadan kartana waxaan leeyahay inay ka qayb qaadato diyaarna waxaan u nahay dawladdan runtii way soo dhaweysay iyada ku baaqday hadalkii madaxweynuhu ku baaqay oo aan anagu London ku aragnay madaxweynaha London kula hadalnay dokumentiyo cad oo nabadda ka turjumayna aanu gacanta ka saarnay ayay waxaan daba socdaan ma wax iska
weli si fiican maxamed hadalka in mugdi iiga jiro xasan daahir idinka casumay idinka oo ah golaha midnimada Soomaaliyeed oo ka dhisan wadankan Ingiriiska oo dabcan Soomaaliya involved ku dabcan urur abaarti ah gudoomiyaha dabcan gudoomiyaha xigeenka waa wareysan doona ma jireen siyaasiyiin kale oo kamid ah kooxda mayalka adag ee al-shabaab sida Robo Mansuur oo kale oo aad casunteen hadii aad casunteen ma idinka aqbalay maxaase laga fili karaa hadda asaga horta arintan xasan waxa gaar u casumay hawshiisa la socday golaha midnimada Soomaaliyeed oo gudoomiye ku-xigeenkeeda uu ka hadli doona aniga ka shakhsiyan kaalintiga aadaneed waxay ahayd kaalinta nabadda iyo dib u heshiisiinta oo aan kala hadlay si toos ah iyo si dadbanba hadeerna aan u taaganahay inaan sidoo kale uga qayb qaadano ma doonayo inaan ka hor dhaco isla markaasna aan riski wax gelin kara shakhsiyaad iyo magacaabo laakiin waxaanu garaacaynaa iridda ugu dambaysa ee qof walba uu nabadda ka qayb qaadan karta kana qayb qaadan doonta waxaan jeclahay inaan ummadda Soomaaliyeed ugu hambaliyeeyo fursad baa jirta maanta in laga faa'iideysto fursadda jirta oo ah dad fara badan wax ku ool ah dhul fara badan oo Soomaaliya ka tirsan ka taliya doonaya inay nabadda ka qayb qaataan laakiin wata condition ah wadanka inay muhiim tahay in shariicad lagu dhaqo waan wax laga hadli karo sida hadda muuqata maxkamadaha ee dawladda mar walba oo xukun dhacayo waxa la soo qaataa qodobka 400 iyo hebelaad waxa sidoo kale la barbar dhigaa waxa Ilaahay iyo aayadkiisu ay ka qabaan oo macnaheedu yahay in almost maxkamadaha ay qaybo kamid ah dabaqayaan dastuurkii maaragtay rabbaaniga ah ee kitaabkii shariicada islaamka marka wixii la isku diidanaa way soo yar dhawaanayaan in ciidan qaran la helo Soomaaliyeed yes ana aaminsan أنا ديدن إن شيشية كينيا يوغندا بروندي إثيوبيا إن ودن كي يكسرون هذان وين ويل سوماليات وأود له وشرف له عيدا كي قلب كسيد إن لبسه وأنا واحد دولة سوماليات دانو جوجرت ومد سوماليات دانو جوجرت مركو حنسود وينينا وحنسود وينيا يريدوا البنديار وهنا نقرأ أنا وأن حل منصب كدونين sidoo doono qofku ahaado ama alqaacida ka tirsan meel kale midna waxa jeclahay inaan halka umad Soomaaliyeed uga sheego adduunka Mareykanku wuxuu baryayaa Taliban oo lafdhabar u ah alqaacida waxir Taliban oo alqaacida lafdhabar u ah ayaa waxa xafiis looga furayaa si loo nabadeeyo wiilasha yar ee Soomaaliyeed hebel aan u naqaanan waxa leeyahay lama hadli karo waanu la hadlaynaa hal inaan su'aashiida ugu dambaysa ku weydiiyo oo ah xasan daahir markii la soo qabtay dawladdu isla markiiba waxa la keenay magaalada Muqdisho waa la xira oo waxa ka warqabnaa ciidamo nabad sugid iyo wax la mid ah la wareegeen oo waliba waxa xanta hoose ay sheegaysaa in nabad sugid shisheeye ay ku jirto ciidamo sirdoon Mareykanka iyo Ingiriiska ay ku lug leeyihiin ma laga fili karaa in ay hor istaagi karto wada hadaladii la gali lahaa kooxaha kale su'aasha kalena waxay tahay anigu waqtigeedii ugu gaabay rabeen ku soo gabagabay Axmed Godane asaga hogaamiyaha kooxda al-shabaab ma isku daydeen in asaga wada hadalka qayb ka galisaan su'aashaad horta aad baan ugu faraxsanahay runtii waana su'aal qiimo badan oo wax bayaabo far badan aad ii soo xasuusisay waxaan jeclahay xasan sababta loo xiray inay tahay waxbuu fashili lahaa al-shabaab waxaanu ognahay qaybo fara badan oo kamid ah inay leeyihiin hay'adaha shisheeye CIA MI5 MI6 iyo FBI waa war xaqiiqo ah oo jira waxaana jira fact dhab ah oo la hayo wadankan waxa qaska ka socda oo qaska ka wada waa shisheeye maal gelinaya rasaasta ay ku dagaalamayaan dhibaatada dhacaysa beeraheena kama baxaan rasaasto internetka iyo facilitieska intaas la egna maaha maartay iyaga wax lagu dhex beertay dawladda wax lagu dhex beertay waxa tusaale noogu filan magaalada Muqdisho waxa ka dhacay Fuad Shangolo masaajid ku jira ayaa la isku qarxiyay masaajidda waxa lagu dilayaa dad yoo kala duwan Sheekh Cabduqaadir Gacmi baa ugu dambeeyay dadkaas faraha badan oo masaajidada lagu dilayo waxaan ugu baaqaynaa dadka la hayo oo waliba dawladda Puntland ama goboleedka Puntland oo hayo inaan lagu degdegin in la dilo arrintaas baaritaan fog way u baahan tahay taas waa qodob aan su'aashaada ku soo noqdo yes Axmed Cabdi Godane ana ugu baaqay inuu ka qayb qaato hanaanka nabadeed iyo dib u heshiisiinta inkastoo aanay u dhicin qaab telefoon haddana waa wax recorded ah oo aad idinku laftigiinu ka heli kartaan Radio Al-Furqan ana siiyay 3 weeks baa laga joogaa waan ugu baaqay inuu ka qayb qaato waan 10 goor horaan kala hadlay haddaan kala hadlayaa waan kala hadli doonaa haddii aan helayo fursadeeda isna waxaan ka codsanayaa dagaal muddo dheer socda wadankeena dan uma aha wiil Soomaaliyeed inuu ku dhintay mooyee wiil Soomaaliyeed ku dhalan maayo waxaan ku leeyahay Axmed Cabdi Godane walaalow ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed inay ka fikirto malaayiinta naloo badan qaaday ee la yiri hal lagu dilo ama hal soo xiro xal nooma aha inaga nabad wax yar xal nooma aha qof Soomaaliyeed
in afgaan iyo daalibaan la baryo oo la yidhaahdo xafiisyaal laydiin furaya heshiis ka qayb qaata wiilasheenana la yidhaahdo waa la dilayaa ee heshiis kama qayb qaadanayaan annagay waxay noo tahay wejgabax xasan daahir waa la xirayay iyo waa la qabtayda la leeyahay waa humiliation la doonayo in lagu qariyo xasan wixii uu fashili lahaa waxaan aaminsanahay ha laga faa'iidaysto hanaanka iyo himilada nabadeed ee xasan daahir uu horseedi doono waa nin khibrad u leh shabaab dhexdeeda waa nin khibrad u leh dowladda dhexdeeda waa nin waxyaabo fara badan oo waddankeena lagu gacan bidxeeyey ee dowladaha shisheeye ay wadaan ay ku gacan bidxeeyeen aniga kula hadlaya 100 goor in ka badan baa lay qabsaday oo dowladan ingiriiska iyo dowlado kaleeta ay qabsadeen ee la igu dayay amaba ay weydiiyeen inaan shaqaale u noqdo oo aan jaajuus u noqdo oo ay ballan qaadeen in lacag la isiinayo sidan la isiinayo oo VOA-da iyo meelaha aad ka helaysaan waraysiyo aan ka bixiyay waddankeena waxa qaska ka wada waa dowladda shisheeye waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed iyadaa iska saari karta inay heshiiso si shisheeyaha uga dhaxba waxaan jeclahay inaan su'aal ku weydiiyo waxaa dhahday waxaan la xiriiray Axmed Godane ma kontaktiga Axmed Godane aad haysaa su'aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay xagee ayuu ku sugan yahay waa nin noocee ah Axmed Godane asaga uu raadinay mid kale waxay tahay waxa ka dhawaad waxa tiri internet bay isticmaalaan iyo kooxda shabaab yaa siiyo internetkaas xagee bay fasiilaadka inta la ka helaan xataa muqdisho aan balaga helin horta waa la xiriiray oo xiriirkiisaan hayaa maaha niman aqaano oo aan weligay arkayna horta maaha laakiin waxaa jira idaacado ay dhageystaan oo Radio Furqaan ugu horeeyo Radio Furqaan wuxuu wareystaa dawladda federaalka wuxuu wareystaa aqoon-yahanada Soomaaliyeed doodu inta badan nagu cesamayo aan inta badan ka qayb galnaa dalxa ka qayb qaata oo doodo badan ay nagu dhex mareen raadiyahaas Axmed Godane wareysi aan siiyay wareysi ku xigay bay ajarad la soo duubay ka qabteen halkaasaan uga baaqay oo ay ka dhageysay isla markaasna toddobaadadii hore wixii aan ka hadlay qaybtood uu kaga hadlayay toos ugama aanu jawaabin nin cid u jawaabana ma aha oo nin hadaladiisu ay maaragtay qofku su'aasha labaad oo aan u gudbaya waxay tahay waxaad arkaysaa shakhsiyaad ajaanib ah oo haysta satellite iyo internet fast ah ninka Soomaaliya jooga caasimadeena jooga YouTube in wax soo galiyo way ku adagtahay hadaan Viasat haysan waxaad arkaysaa shakhsiyaad ajnabi ah oo al-shabaab sheeganaya inay internetka soo gelinayaan video fast ah way caddahay waxaa siiya oo aan ku eedeynayaa waa shisheeye waana waxa aan leeyahay ama CIA ha noqoto ama ha noqoto MI6 ha noqoto ama MI5 ha noqoto laakiin waxa cad involvementiga ay ku yihiin dowladda Ingiriiska iyo dowladda Mareykanka waxa cadeyn u ah oo cadeyn aan kale aan u baahnayn ninka awoodda intaas leeg haysta ee video YouTube wax soo galin karaa nin Soomaaliyeed oo muqdisho caasimadeena jooga ayaan haysanin marka waxaan leeyahay oo aan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo oo aan mar walba ku soo gabagabeeyo sidii aan wareysigii ugu dambeeyay Universal TV aan ka siinay in Soomaali isku noqoto aad u mahadsan yahay waxaad ila soo fariistay gudoomiye ku-xigeenka ururka midnimada Soomaaliyeed oo ka dhisan wadanka UK oo dabcan isagu kamid ah dadka magacaabay in ay Xasan Daahir Casmeen oo aan jeclahay inaan su'aal ka weydiino Maxamed Bilaal Xasan Daahir baa casuumtay sida uu ii sheegay nin kamid ah ururkaaga idinka miyaa Xasan Daahir casuumay oo ku casuumay in uu ka soo noqdo kooxda shabaab oo uu yimaado dalka Soomaaliya sida shakadu maaha ururkayga qaar kamid ah ayaa waxay sameeyeen xiriir la sameeyeen si uu wada xiriireen qayb naga mid ah ayay wada xiriireen qaybtaas hadda ka shaqaysay oo ururka ka mid ah sidii uu u soo noqon lahaa oo wada hadal loogu qaybgeli lahaa oo dalka bis loogu soo celin lahaa weligeed lagu jilmaayo dagaal iyo rabshad iyo waxa laakiin ururku qayb weyn uu ka qaatay jeclahay inaan su'aal kale ku weydiiyo oo ah haddii aad ku guulaysateen inaa Xasan Daahir keentaan ma jiraan kuwa kale oo aad la xiriirteen sida Roogo Masuur ama rag kale ama Axmed Godane xataa ma jiraan inaad la xiriirteen ama maxaa diidan haddii inaad la xiriir inaad hadaba Xasan ku guulaysteen inaad asagana aad isku daydaan isku ma aanan diin laakiin adaga waxa jigun baa la isku dayay marba waxa way furuhu halkaas ka bilaabmay haddii isaga lagu guulaysto dabcan gidid marba qof baa loo geli karaya laakiin mar lama wada gelin Abu Masuur iyo isaguna waa wada socdaan marba bay wada yimaadeen waxaad moodaan xiriir ka dhaxeeyay ama ay wada socdeen marka waa hawl socota waana golaha ayaana ka shaqeeyay sidii loo wada hadli lahaa wada hadallo badan oo kalena way wadeen Xasan Daahir maanta waa la xiray magaalada Muqdisho lagu xiraa ka waran balse waragtan dareenahan maxay idinka bedeshay haddii mar aad keenteen in aad Xasan Daahir aad casuumteen asagina dawladdu ay xirtay oo waliba nabad sugidii iyo ay qabteen maxay idinka bedeshay waa isleedahay muxuu iska bedeli karaa hankiina inaad kooxda kale keentaan
waxa weeye aad baan soo ka xunnahay dee howlaan gallay in naloo gacan dhaafo waxay ahayd in meel dhexe la isugu yimaado oo nin odayu ahaa in nabadda isaga lagu doono bay ahayd xadhigga iyo waxaasna waxba ma keenaan dalku wuxuu u baahan yahay in dib heshiisiin dhab ah in isaga laga qaato bay ahayd shidaal si dadka kale loo keeno oo nabadgelyo dhaba la wada doono xadhigguna dee rag baa loo sameeyey in la xidho laakiin ma ahayn in laysu dhaafo waxay ahayd in si caadiya loo wada hadlo oo nabadgelyo nin odaya waa nin nabad ugu dooni karaa waa nin keeni kara nabadgelyo aad u mahadsan tahay waxaad ka daawanaysaan shabakadda SO5.tv Yeah.